magaalada Guriceel waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay musharaxa xilka jagada madaxtinimada Soomaaliya u taagan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sida uu faafahinta warkan uu ku eegay wariyahayna Cabdi Kaafi. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka dhalinyarada ururada haweenka iyo waliba dhammaan qaybaha dadweynaha degmada Guriceel kana dhacday guriga degmada Guriceel uu ka degan yahay ugaaska beesha Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur ayaa lagu taageerayay musharaxa xilka madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana xafladan lagu soo bandhigay waxyaabaha inta badan oo Soomaalida hidaha iyo dhaqanka u leeyihiin sida rag iyo waliba dumar ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka korna u holulayay calanka Soomaaliya ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo waliba waxyaabo kale kuwa oo dhammaan muujinayay hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay leeyihiin wareen munaasabada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ay ka mid ahaayeen nabadoon Carta Sheekdoon nabadoon Jaamac Bootaan iyo waliba nabadoon Jaamac Cutubey iyagoona si isku mid ah u muujiyay taageerada ay u hayaan musharaxa xilka madaxtinimada Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kana codsaday dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay taageeraan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah musharax u sharaxan madaxda sanadka ee Soomaaliya madaxweyne u sharaxan kaleeto oo Soomaaliyeed oo maqalka muuqaalka fiirin ama maqli doonta ama arki doontana waxaanu ka codsanaynaa ama soo jeedinaynaa sidaas annagu aad arkaysaan oo dadkii bulshadii dadweynaha deegaanka degmada Guriceel ama gobolka Galmudug dhammaantiis dadka Soomaaliyeed meesha jooga waxaanu ii soo jeedinaynaa ninkaas sidaas annagu aanu mataqaanaa u taageertaan ninkaas xafladda dhigtay walaalkaya ah xuraya maanta madaxweynenimada ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa oo uga baryaynaa in ilaahay u sahlo uu siiyo annaguna kalsooni weyn baan ku qabnaa inuu wax nagu tari doono Soomaalina wax ku tari doono saasaan kalsooni weyn ku qabnaa waxaanu leenahay inta ninkaas taqaanaa maanta waxaan jecelnahay inay taageeraan mar hadduu isu soo taagay musharaxnimo xil madaxweynenimo ayaan ku taageeraynaa Soomaali dhammaanteedna waxaan ka codsanaynaa walaalayaal nala taageera nala qaata nagu qiimeeya isku qiimeeya adunkuna oo sidoo kale ururada haweenka iyo ururada dhalinyarada ayaa iyagana halka hadal ka soo jeediyay taa oo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur xafladan aad ku qiimaha badan u balaaran waxaan ugu magac daray oo lagu magac daray dhamaan inuu yar noqon doono kulmiyaha ummadda Soomaaliyeed labada gobol ee Soomaaliya waqooyi iyo koonfur waxaan u hambaleynayaa musharaxa aad aan ugu jecelnahay inuu shaqo helo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaan leeyahay madaxweyne Soomaaliyeed oo dalka iyo diinta iyo dadka baafaca ku naga tiro dadkii hore oo madaxtinimada noo qaaday sida qaabta daran in ilaahay ka dhigo waxaan u hambaleynayaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame musharaxana caanka madaxtinimada sanadkan ugu tartamaya waxaan ku rajaynayaa sanadkan inuu musharaxa noo qaado doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur ayaa guriga gabagabadii ka hadlay munaasabadaasi wuxuuna ugu duceeyay musharaxa inuu noqdo mid ku guuleysta jagada uu tartamay xafladan waxaa loo diyaariyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame annaguna waa hadda gurigeygii waaye wax xafladu taala ilaahay waxaan uga rajaynaynaa sida annaguna hadda aan ama ugu ducaynay ama maaragta xafladiisa aan uga soo qayb galnay ilaahay ugu guuleeyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Axmed Soomaali Channel Guriceel